madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa daafuray heertayadyada qaranka oo ay diyaarisay hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland. Munaasabadda daafurka heertayadyadaasi waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda, dowladda hoose, caasimadda Hargeysa, hay'adaha ay wada shaqaynta dhow leeyihiin hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland. runtii 2 sano iyo badh ka hor bay wadanka timi. hay'addu waxay gacanta ku haysaa Berbera corridor-ka, gaar ahaan annagoo dhisayna wadadan Hargeysa bypass-ka iyo guud ahaan management-ka guud ee wadada Berbera corridor-ka. Goornaalkaasi waxaa ka hadlay Xamse Suldaan Aadan, agaasimaha guud ee hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland, iyo gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf, waxaana ay ka warrameen qaybaha ay ka kooban yihiin heertayadyadani. ka xukuumad ahaan ama ka muxuu ahaa commission ahaan aanu diyaar garowno waqtiga markaa waxayna hagaya waa guidance kii aynu wada dhignay ina hagaya ina gaarsiinaya mustaqbalka dhow hadii ilaahay ka dhigo inaynu muxuu ahaa warshad kasta oo dalka ka hirgelaysa ay yeelato international certification iyo international accreditation si loo aqoonsado waxa ay soo saaraysaa inuu caalamka meel kasta uu ka hirgeli karo. annaguna waxaan jecelahay in heertayeedka aad fahantaan maadaama nolosheena uu saameyn ku leeyahay heertayadyadan soo bandhigayna waxa kamid ah kuwa baastada bariiska naxayada saliidaha waxyaalaha muhiimka inoo ah runtii mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska Soomaaliland, gudoomiyaha rugta ganacsiga, gudoomiyaha gobolka Muradjeex, meeyar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa. runtii waa guulaha ugu waaweyn ee jamhuuriyadda maanta gaadhay. waayo waxaad arkaysaa sometimes xafiiska waxaa kugu imanaya shay markii hore tayadiisu fiicnayd markuu hirgalay oo dadkii wada barteen inuu qof kale soo koobiyeeyo. waxaan runtii soo dhaweynaynaa inaanu kala shaqayno oo aanu u diyaar garowno sidii tayada kor loogu qaadi lahaa halka ay maanta marayso hadday tahay raashin shidaal iyo dawaba. barnaamijkan halkan lagu daafurayo oo ah runtii barnaamij qaranka faa'iido weyn ugu jirto kana turjumaya horumarka Soomaaliland ay gaadhay iyo tallaabooyinka maalinta ka dambaysa aynu hore u qaadayno. runtii waa wax lagu farxo. waxaa naga noo farxada in commissionka heer qaran ee quality control in shaqada qayb aanu kala ahaano. waxaan u ballan qaadaynaa inaanu si rasmi ah wada shaqayno oo inuu shaqada intaa ka sii xoojino. wasaaradaha gaadiidka iyo diinta iyo qaafta ayaa hadalka iska daba maray. laba ujeedin baa laga leeyahay marka laga hadlayo quality-ga waa protection iyo safety. waxa weeyaan ilaalin iyo badqab ilaah baa haya, laakiin bilaadanku intuu nool yahay waxa ay inta badan jecel yihiin inay nabad galaan way badqabaan. badqabkuna dhowr dhinac buu galaa. annaga laftayga waxaanu ka shaqeynaa qaybta badqabka gaadiidka. marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana u mahad celinayaa hawsha qiimaha leh ee maanta wada joogno dadaalkii geliyeen iyo hawsha ay soo qabteen. runtii waxaad oran kartaa marka dhinac ka eegto waxaanu ka hadlaynay diin bay ahayd, wada diin ayay ahayd marka dhinac ka eegto. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi dhan buu u soo diray inuu tayada ganacsiga uu eego. nebi Shucayb weeye. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa isaguna waxa uu hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ku bogaadiyay dadaalka ay samaysay ee ku aadan heertayadyada cuntooyinka iyo alaabooyinka dalka soo gala. runtii maanta waa maalin aad u qiimo badan. waa wax taabanaya barnaamij ama hay'ad inoogu xil saaran tayada hadday tahay cunto iyo haddii wax walba tahay inay maanta inoo soo bandhigtay heertayaadka maartay qaranka Soomaaliland. aad iyo aad bay runtii maalin weyn noogu tahay, waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. runtii marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxa hay'adda iyo komishanka oo dhan iyo intii kala soo shaqaysay runtii aqoonyahan jaamacadeed iyo private sector-ka walahayd hawshan aad uga soo shaqaysay runtii qiimaha badan. waxaan ka qaadanay runtii darsi aad u weyn baynu qaadanay oo aad u qiimo badan oo baahiyahii dalkeena iyo wixii aan tabaynay oo dhani ay ku jiraan.